haddaba maanta waxaan idin wadaa barnaamij su'aalo iyo jawaabo ku saabsan jacaylka part 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسر وهذا الشانل هدي الشانل كوصلتي مقعي وبارود عبد الرحمن. اوكي. فلان هدي انا حرصت بسكراب السن حدث صار كمال كيرنا الريح سيادة مغتد داوده وغهرية برنامج كستا عن صدقنا داوده اكفاية دستا. اوكي هدو مانتا وحن اذين وضع برنامج سؤاله iyo jawaabo ku saabsan jacaylka part 1. horey waxaan uga soo hadalnay xogo ku saabsan jacaylka oo waxa kamid video 12 mahmaayada jacaylka ee ugu caansan. waa video jira channelkeena ayuu ku jiraa. sidoo kale video kalaasna ereyo jacayl oo macaan taabanaya qalbigaaga isna channelkeena ayuu ku jiraa. marka videodan haddii aan hore u daawan insha Allah videodan dhamaadkiisa ayaan soo dhigi doonaa linkiyada. balse haddii aad jeceshahay runtii inaad ka faa'iidid barnaamijkeena maanta bilow ilaa dhamaad nala daawo oo isla socod wacan. su'aalahan waxay soo weydiiyey runtii qaar ka mid akhyaarteena ku xiran channelka. su'aaluhu way fara badan yihiin balse qaybo ayaan idinka soo sameyn doonaa part 1 part 2. marka maanta waxaan idin wadaa part 1. part 2 na insha Allah sida ugu dhaqsiya badan ayaan idin soo dhigi doonaa. haddaba aynu gudagalno mawduuceena. let's go. su'aasha koobaad waxay leedahay waa maxay jacayl? macnaha saxda ee jacaylku uu leeyahay waa maxay? xaqiiqdii jacaylka maanta qof walba sibuu u qeexaa, qof walba sibuu u yaqaanaa. qaar baa u yaqaana jacaylka inuu yahay wax dumarka lagu khiyaano oo lagu soo jiito. qaar waxay yidhaahdaan maba jiro. qaar waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay wax macaan. balse xaqiiqda waxay tahay jacaylka qeexdiisa saxda ee uu leeyahay waa dareen ka dhasha qalbiga oo farxad, kalgacayl iyo naxariis leh oo ka dhaxeeya laba abuur, laba qof ama idinka dhaxeeya adiga iyo rabbigaaga, kaasoo Allah subxaanahu wa tacaala qofka bini'aadamka uu qalbigiisa ku beero. waxaana si cad loogu qeexay qur-aanka. Allah ereygan wuxuu ku sheegay qur-aanka 2 meelood. haddaba jacaylku waa dareen ka dhasha qalbiga oo farxad, kalgacayl, naxariis intaba leh oo ka dhaxeeya laba abuur, laba qof ama idinka dhaxeeya adiga iyo Allahii ku abuuray, kaasoo Allah subxaanahu wa tacaala uu qofka bini'aadamka qalbigiisa ku beero. Allah wuxuu ku leeyahay qur-aankiisa kariimka suuradda 30aad suuratul Ruum aayadda 21aad. waxaa ka mid calaamooyinka Allah inuu idinka abuuray haween si aad isugu xasishaan. Allah wuxuu leeyahay wuxuu idinka abuuray naftiina haween loona abuuray si aad ugu xasishaan, si aad ugu degtaan. wuxuuna dhexdiina ka yeelay isjacayl iyo naxariis. Allah wuxuu noo sheegay jacaylka inuu dhex dhigay qalbiyada laba lamaane, waxaana loo yeelay labadooda inay isku xasilaan. taasina macnaheedu waxay tahay inaad isdameynaysaan. haddii ay xanuusto adna waa la xanuunsanaysaa, haddii ay faraxsan tahay adna waa la farxaysaa. waxaasoo dhan waa jacayl. marka waxaan rajaynayaa su-aashaada qiimaan lahayd inaan kaaga jawaabay walaal. okay, su-aasha labaad haddii aan u gudubno. su-aasha labaad waxayna leedahay markaad qof
xidhiidh la leedahay maxaad ku ogaan kartaa inaad qofkaas jeceshahay? marka jawaabtu waxay tahay marka aad qof xidhiidh la leedahay inaad qofkaas aad jecel u qaaday waxaad ku ogaan kartaa calaamadahan soo socda adigoo isku arka. 1. adigoo isku arka qofkaas aad xidhiidhka la leedahay ee qalbigaaga ku jira inuu afka ka xado magaciisa mar aad doonaysay inaad qof kale u yeedhid. 2. adigoo isku arka inaad qofkaas aad waqtigaaga intiisa ugu badan aad kaga fakaraysid. tusaale 3 meelood haddii loo qaybiyo fakarka aad fakartid 2 meel ahaan isaga ayaad kaga fakaraysaa. 3. adigoo isku arka sida adigoo aad iyo aad ugu danqanaya qofkaas aad xidhiidhka la leedahay inay wax soo gaaraan, balse haddii aad maqashid tusaalahaan waxbaa soo gaaray waxaa laga yaabaa si degdeg ah adigoo isiloosin inaad garaacdid ama aad wacdid oo hadhow cabaar kadib maraad iswaraysi kadib waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid alla talow gormaan garaacay, gormaan la hadlay. markaa inaad calaamadan isku aragtid waa mid ka mid ah. su-aasha 3aad runtii su-aashan waa su-aal darantaawad leh, anigaygaa xataa jirdhico ayarn ahaantii iigu kicisay. su-aashan waxay ka timid gabadh walaashan ah. marka su-aashu waxayna leedahay sababta ragga intay gabdhaha jacaylka ku abuuraan oo ay u xumeynayaan oo ay uga baxaan jacaylka maxaad ka leedahay ayay tidhi walaashan. jawaabtu waxay tahay haddaba horta walaal taasi waa wax dhaca mar walba, haddana runtii wax aynu raalli ka nahay oo aynu ku xasilno ma aha haba yaraateen. marka su-aashaadan 2 midba waan ka leeyahay. 2 midba waxaan doonayaan ka idhaahdo. mid waxaan kula hadlayaa ragga noocaas farxumada leh gabadh walaashood oo kale ah kula kacaya, inkastoo dhammaan ragga oo dhan aysan isku mid ahayn oo ay jiraan runtii rag badan oo xumaanta ka hufan oo wanaag ilaahay u dhameeyey. mid labaadna waxaan doonaynaan kula taliyo gabadhan iyo gabadh kasta oo Soomaaliyeed talo anfacda. markaan ku horeeyo midda koowaad ee aan ku leeyahay ragga falka noocaas u geysta gabdhaha, war niman yahow waxaad ogaataan in adduun iyo aakhiro aydan noqonayn dad ku aflaxa haddii aad sidaas samaynaysaan, sababtoo ah xagga aakhiro waxaa ka hor taala xisaab. maxaad qofkan noloshiisa ugu ciyaartay, maxaad u khiyaantay, maxaad beenta ugu sheegtay, iyo xisaab kale oo aan soo koobi karin oo Allah keligii uu og yahay. adduunyana nafsi ayaa ku sugaya oo nafsiga hore loo yidhi ma gaboobo, iyo cuquba allaba mid ku taala haddii aadan kasoo toobad keenin oo qofka aad cafis ka dalban walaashaa. haddaba waxaa idin fiican inaad noqotaan rag ka fogaada oo ka hufnaada xumaan oo dhan iyo bini aadam in lagu gafo oo lagu xadgudbo, cibaadadiinana si joogta u sii wata. haddaba sidaas waa sida keliya ayaad ku aflixi kartaan aakhiriga adduunba. dhammaanteenba insha Allah ilaahay khaatumada khayr ha inoogu dhameeyo. haddaba aan usoo gudbo mid aan ku leeyahay, mid aan kula talinayo gabdhaha Soomaaliyeed. gabdhaha Soomaaliyeed runtii waa walaashin, gabar kasta waa walaashin. naftan waxa la jecelnahay oo ina walaalkan la jeclaanaa, walaashin la jeclaanaa. okay, haddaba tan aan idinkula talinayo ayaa ah dhowr qodob oo kale ah. marka hore qof bin aadam ah oo kugu leh mustaqbal baan kaa rabaa, inaan ku guursado ayaan rabaa, inaan xiriir wada sameyno ayaan rabaa, qalbigaaga ha wada siin. marka hore qalbigaaga ha wada siin. okay, haddii aad markiiba qalbigaaga aad wada siisid oo
تلاهيد هي أنا كادرا أوكي وعادي التلاهيد مقران ساعات قلبي مركب أدوى سيسيد ودقدق يفضل وكو قادو واحد عذا إن هدو قوممو يشالاي أي كو دعضو إلين هورا لو يري شالاي مهوري سوى دبايسا مركا كافيرس انت فلن وحانا ايدين في عن إناد استعماشان مسكح فجقنان إيه دقنان إيه سيدو كلانا وحا مهم إناد إلهي تلسارتان marka intaas hadii aad sameeysan waxa dhacda in Ilaahay insha Allah uu idin la garab galo hadii uu qadaro su'aasha afraad hadaba waxay leedahay jacaylka sidiisaba mashruuda mise waa sheeko runaantii dadka qaab jira ka aaminsan jacaylka inuu yahay shuruudo sheeko marka hadii aan u soo laabto su'aashan jawaabteeda horta jacaylka sidiisaba ma aha shuruudo ma aha sheeko mana aha xujo wax la isku xujeesto ma aha jacaylku sidaas ma aha balse jacaylku waa sida horeba aan u soo sheegnay su'aasha koowaad aan si fiican ugu soo xusnay uga soo hadalnay jacaylku waa dareen ka dhasha qalbiga oo farxad kalgacayl iyo naxariis leh oo ka dhaxeeya laba abuur laba qof ama ka dhaxeeya adiga iyo Allihii ku abuuray kaasoo Allah subhanahu wa ta'ala qofka bini aadamka uu qalbigiisa ku beero sheekayr oo ku saabsan su'aasha waa maxay jacayl ayaa waxay oranaysaa sheekadan waxay ka dhacday wadamada Carabaha ciyaal yaryar oo dugsi hoose dhigta ayaa macallinkooda maalimaha kamid su'aal weydiiyay su'aashaas oo ahayd waa maxay jacaylka agtiina muxuu ka yahay maxad u taqaanaan jacayl su'aashan soo baara bari ayaan idin weydiinaya insha Allah ayaa macallinkii ku yiri ciyaalka hadaba subaxii markii la gaaray macallinkii ciyaalka wuxuu ku yiri meeday su'aashii aan shalay idin diray oo aan idin ku yiri soo baara kadibna wiil yar ayaa kacay oo macallinkii ku yiri macallin aniga jacaylku waxaan u aqaanaa marka hooyaday shaaha ay u kariso aabo kadibna ay ka dhadhamiso inta aysan u geyn oo ka hubiso sonkorta ku jirta iyo caleenta ama rinjiga iyo sidoo yahay jacayl aniga kaas ayaan u aqaanaa ayuu ku yiri macallinkii marka ilmahaas yar jacaylku wuxuu ka bixiyay jawaab darantaabad leh dad badan oo dadweyn ayaa jira maanta jawaabtan iyo mid ku dhowa aan maskaxdooda ku jirin okay hadaba aynu u gudubno su'aasha shanaad waxay ina leedahay sideen ku ogaan karaa qofkan inuu jecel yahay iyo in kale yani qofkan aan xiriirka la leeyahay sideen ku ogaan karaa inuu jecel yahay hadaba qofkan aad xiriirka la leedahay waxaad ku ogaan kartaa inuu jecel yahay iyo in kale adigoo ku arka calaamadahan soo socda kow waa qof jecel inuu mar walba kula soo hadlo xagga telefoonka oo daneynaya wada hadalkiina iyo inaydan kala fogaan laba waa qof jecel inuu wax ku huro sida hadiyad iyo wixii la mid oo wanaag inuu ku siiyo ayuu jecel yahay waa qof jecel inuu ka taliyo farxadaada jecelna inuu ka qosliyo marka aad wada hadlaysaan caro iyo dibna aan kula jeclayn afar waa qof jecel inuu ka warhayo mar kasta iyo xaalad kasta aad ku jirtid shan waa qof hadalladiisa qaar adiga xusuus kugu reeba oo inaad mar walba xasuusatid kugu sababa lix waa qof balanta aad u ilaaliya balanteeda ka dhaxeeya waa qof jecel inuu ilaaliyo haddii waqti ay tahay waqtigeeda ku ilaaliyo intaas calaamadahan aan soo sheegnay qofka haddii aad ku aragtid waa qof runtii adiga ku jecel waa qof runtii adiga ku daneynaya qof runtii adiga doonaya in uu xilkaaga noqdo marka daawadayaal barnaamijkeena maanta intaas ayuu inoogu egyahay oo shanta su'aalood ayaan maanta kasoo dhigay san horeyd ku sheegay su'aaluhu fara badan yihiin oo waxaan ka dhigtaa
qaybo part 2 part 3 marka haddii aad jeceshiin in qaybta part 2 aan soo horeysiiyo aan wax kale aan ka soo horeysiin fadlan xagga committee-ga waad iga soo qori karaysaan sidoo kale haddii aad su'aal kasta ku saabsan jacaylka aad haysid ay kugu taagan tahay oo jeceshay inaad laga jahil saaro fadlan xagga committee-ga noogu soo qor marka inta kadib fadlan haddii aadan hore subscribe usameyn hadda saar subscribe sidoo kalena haddii aad videogan ka faa'iiday fadlan like saar waa inoo insha Allah next video. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.